cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gaaray isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho si ay dhiig uga shubaan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii shalay ka dhacay Soobe faafaynta warkaas waxa inoo ay wariyaha Maxamed Ibrahim. cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa gaaray isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho si ay halkaasi dhiigooda ugu bixiyaan isla markaana ugu caawiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho. General Abdullahi Ali Caano afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la hadlay warbaahinta. Alxamdulillah thanaa lillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. maanta waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan kala qayb galno dhibaatada weyn ee soo gaartay. waxaan joognaa Erdogan isbitaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan halkaan ku bixinaynaa dhiigga xoogga dalka dadkii dhibaatada ka soo gaartay argagixisada shalayta ay u geysatay cadawga ummadda Soomaaliyeed oo u bartay daadinta dhiigga Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marba wuxuu u taagan yahay gurmadka shacabka ama dhiig bixin ha noqoto ama u gurmad masiibo markay timaado ha noqoto mid hore iyo mid dambaba sida wabiyaasha fataha bacad celinada iyo wixii lamidaba abaaraha iyo wax kasta masiibaha shacabku yimaada xoogga dalka wuxuu u taagan yahay inuu kala qayb qaato. haddana maanta waxaan joognaa Erdogan isbitaal waxaan bixinaynaa dhiiggaan bixinaynaa dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii cadawga shalayta la beegsay shacabka Soomaaliyeed. mideeda kale saakayto waxa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubyada gaarka sida gaarka u tababaran oo danab iyo gargor ay ku guuleysteen inay la wareegaan magaalada Masaajid Cali Guduud iyo tuulooyinka ku hareeraysan. Masaajid Cali Guduud hore aan soo sheegnay magaalo istiraatiijiya weeye aad ay cadawga u daneeyo. tuulooyinka kale ay la wareegaan waxa kamid ah magaalooyinka la yiraahdo Burdacar iyo Daarusalaam. cadawga muddadii halka joogay wuxuu gubay dhammaan ceelashii biyaha iyo adeegyadii bulshada. wuxuu gooyay isgaarsiintii shacabka Soomaaliyeed u adeegsanaysay arrimahooda gaarka ama midda dhaqaale ama midda bulshada u adeegsanaysay. waxay barakiciyeen dadkii meesha joogay. intooda badanna waxay ka qaateen cuntadii iyo daawooyinkii farmashiyaasha iyo bakhaarada yaalana way ka qaateen ayagoo la jeeda inay ka dhigtaan saad taakulayn oo ay kula dagaalamaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogaga hubaysan ee kacdoonka shacabka Soomaaliyeed oo saaka ayaguna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la hawlgalay. ana ku hadlayaa afka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka gaashaandhiggaba afka wasiirka wasaaradda ana ku hadlayaa waxaan u tacsiyeenayaa shacabka Soomaaliyeed oo halkaan dhibaatada shalayta ku gaartay. waxaan leenahay Allah intii dhintay Allah u naxariisto inta noolna Allah u boogadhayo.